waxaan rabnaa laba eray inaan ku kabo jaamacadda ka imanaysaan iyo shaqada qabanaysaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ama JUS waa jaamacad taariikh weyn leh waa jaamacaddii ummadda ma aha dukaan qof leeyahay waa jaamacad qof kasta oo Soomaali u leeyahay aniga mid gaar ah ii tahayo waa jaamacaddan dhexdeeda ku soo koray ku soo barbaaray marka waa ka jecelahay jaamacadaha kale ilaa yaraantaydii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed baan qayb ka ahaa oo ku dhex koray ku dhex noolaaday ku weynaaday marka waan ka jecelahay institutionska kale magaceedu inuu koro oo kobco oo weynaadana waan jecelahay waa jaamacadda ugu dhul weyn jaamacadaha Afrika baan qiyaasaya wadamo badan baan tagay jaamacad le dhulka ay leedahay ma arag waa impossible yani magaalada xamar malaay waxay leedahay baan maleynaya markaas 4 loo qaybiyo 5 loo qaybiyo meel baa dhulkeedu jaamacadda ummaddu leedahay ka soo bilow afgooye ilaa iyo siliga Ameerikaanka si uun bay jaamacaddu ugu lug leedahay dhulka inta leega aragteen burcad balcadna 1 kilomitir bay ku leedahay yani markaan ka hadlayo Afrika taasan ka hadlayo waxa laga yaabaa in areadan centerka Axmed Weyne inuu qaarkiin harkeene marka jaamacadda qaybta Degahayr iyo Lafoole iyo qaybta kale ee warshadaha iyo beeraha iyo kulliyadda beeraha iyo yani waa jaamacad leh hanti haddii la yiraahdo hantideeda qiimeeya ay billions dollar gaarayaan ma aha baan idinku yiri jaamacad hal qol ah magacaasa sidaan magacaas inuu kor noqdo ayaa la idinka rabaa waxaa la idinka rabaa tayadii ardayda ka soo bixi jirtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee lahayn jirtay in la idinka arko waxaa la idinka rabaa inaad ambassadors danjirayaal u noqotaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markan waxaan u hadlayaa jaamacaddii magaceeda ilaalisaan tayadeeda ilaalisaan ku faantaan aan noqontaan flag bearers wax la yiraahdo calan sidayaasha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaas jaamacaddan ku dhaafaya waxaan u dhaafayaa shaqadiinu waa saxaafad sawir xun bay saxaafaddu hadda leedahay iyo wariyuhu waxaana u sameeyey qof aan iskuul gelin oo dugsi quraan gelin oo aan tababar kale gelin oo wariye ah Englishka waxa la yiraahdaa claimed isaga isboqoray claimed to be a journalist isaga wuxuu claim garay yani wariye maaha laakiin wuxuu sheegtay inuu wariye yahay suuqii waxa idin kula jira qof sheeganaya wariye oo aan tababar u lahayn oo aan aqoon u lahayn oo aan xirfad u lahayn oo aan akhlaaq u lahayn oo aan qiyamka saxaafadda u lahayn oo aan wuxuu xeerinaya aanay jirin wuxuu rabo qoraya wuxuu rabo ku hadlaya wuxuu rabo sheegaya Yusuf Garaad baa wuxuu sameeyay quotation la yiraahdo shaqooyinka ugu fudud waa siyaasadda iyo saxaafadda sababtoo wax labadaba wax loo yaqaan in la iska hadlo labadaba hadal maaha siyaasaduna aragti bay rabtaa vision markaad leedahay waxaan rabaa inaan siyaasadda galo maxaad rabtaa inaad bedesho waa inaad aragti leedahay saxaafadduna waxay leedahay aqoon bay u baahan tahay waxaan rabnaa academic baa noqoteene inaad bedeshaan wariyihii garab saar dabka ah wariyihii isagu isboqoray wariyihii aan xadka lahayn xadka maxaa ka mid ah qarannimada wadaniyadda dalka amniga akhlaaqda ku xadgudubka ummadda dadka kale nabadgelintooda fadaaxadaha ilaali yani qiyamkii wariyanimo la idinka rabaa waxa kaloo la idinka rabaa war sugan ummadda inay gudbisaan waxa la idinka rabaa wixii la idin baray 3 sano la idinku akhriyay sanadka dambana idin dhiman yahay in la idinka arko oo aan marka stuudiyaasha fadhidaan ay ka muuqdaan oo la yiraahdo warbaahinta qaranka aqoon baa ka muuqata akhlaaq baa ka muuqata dabeecad baa ka muuqata wax gudbin baa ka muuqata hadday qoraal tahay iyo hadday idaacad tahay iyo hadday TV tahay
iyo hadday documentary la sameeyo tahay iyo hadday dhammaan way joogaan agaasimayaashii way idinla shaqayn doonaan agaasimayaashayda iyo maamulka wasaaraddana waxaan halkan uga jeedinayaa si gaarana aan uga sii ballami doonnaa in aad laydiin soo dhoweeyo in laydinla shaqeeyo in albaabadoo dhan laydiin furo in qalbiyadana laydiin furo si aad uga tagtaan halkan idinkoo tababar fiican qaatay oo kalsooni fiican qaatay oo tijaabo fiican qaatay